بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هنتي مكسود وادي يوتيوب شانل كقطع برودكشن ما هذا كسب ده سبسكرايب على لايك على شير كلكم انتماء زنيد ما انت waxaan idin wadaa qiso dhacday 1992 kuna dhacday nin Soomaaliyeed oo kana dhacday dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan wadanka dhan Soomaaliya taasoo wadanku markaa burburiyay sanadkii labaad ee burburku uu socday ba waxa dhacday niman badan oo dhalinyaro ah ba waxay dhaceen gaari u jaadka buuxo gawaarida kala magaciid weeyeen gaari la dhaho waaraad ama si kala dadku shaambo way yaqaaniin dad waxa yaqaaniin FCR oo qayb kamid weeyeen FCR ku laakiin gaari waaraad buu ahaa waxa dhacday nimankii gaariga dhacay baa way ordeen waxay geeyeen isaga iyo niman kale oo fara badan meel magaalada yar gaari ku qabtay wax aan qadayno iyo waxun dibad ku habsaamiyay ninkii dareewalka ahaa waxa nin qalqaali aad u qalqaali ah waxa dhacday markaa intuu orday nimankii intay meel iskaga mashquuliyay buu gaarigii sidii kaliya la tagay waxa dhacday wuxuu tagay meel la dhaho ceelafweyn waa meel kamid ah gobolka Sanaag baan filayaa waxa dhacday markaa inuu sameeyo markuu soo istaagay magaalada ceelafweyn baa bulshadii ku dhaqnayd oo rag iyo fanaagaba u badan baa wuxuu oriyaadeen gaariga soo jaadan wada maanta sidee baan wax idin siiyaa ma sida Ilaahay mise sida aadama kulliba Soomaali fad qalalo lagama waayo kuwa waxa ku dhigay sida Ilaahay ninkii uu orday gaariga buu furay ninba wuxuu siiyay malaha ilaa 7 jawaan oo jaada mid wuxuu siiyay 2 jawaan mid wuxuu siiyay jawaan mid wuxuu siiyay 2 laamood mid wuxuu siiyay majin mid wuxuu siiyay caqaar mid wuxuu siiyay fal kuwana wuxuu muusin kadib maxay siin baa lagu yiri ninna 7 jawaan baad siisay ninna wuxuu ma siin kadib wuxuu Ilaahay bisaas wuxuu qaybiyay ardayga taga iminka ninkii waa sheekh weyn haddaad aragtid wax qoonay Ilaahu dambiyadan galay oo dhan iga cafi si gaar ah laakiin kan Ilaahayow sida Ilaahay baa sidan u qaybiya Ilaahu ka iga dambi dhaaf waa runtii dambi uu galay laakiin ka toobad keenay iminka waa nin weyn daahiisu waa 6 jir meelaha waa sheekh haddaad aragtid wallaahi alcadiim is oranaysid kana ahaan jiray saaqid ama dad dhici jiray waxa dhacday markaa wax walba hadaad xumayd ilaa markuu hanuuninayo sabab ku hanuuninaya markaa waxaan leeyahay is ilaaliya inta is ilaalin kartaan xumaanta ka digtoonaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.